ciidamada booliska Soomaaliland ayaa habeenkii xalay soo qabtay Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne oo kamid ah culimada Soomaaliland kuwa soo xabsiga u taxaabay waxaana sidoo kale ay sheegeen inay soo qabteen dhalinyaro tababar ku qaadanaysay deegaanka lagu magacaabo Ubaale oo ku yaal dhinaca koonfureed ee magaalada Hargeysa waxaana sheekha iyo dhalinyartaasiba lagu eedeeyay inay khalkhal ku yihiin amaanka dalka sida ay sheegeen taliye-xigeenka ciidanka booliska Sareeye Guuta Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle iyo afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ahna taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka gaashaan la sare Faysal sida ogtiin ba ciidanka booliisku wuxuu ku jiray hawlgal aan kala go' lahayn muddadanba oo ku xaqiijinayo amniga qarankan iyo dalka hawlgalkii ugu dambeeyay ciidanka booliisku ay ka hawlgaleen xalay waxay ku soo qabteen Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne oo khatar ku hayay qaranimada iyo khalkhalgelin nabadgelyo lagu soo xiray isagoo abaabulay kana been sheegay hawlgal ciidanka booliisku ay ku soo fuliyeen oo kan ka horeeyay oo lagu soo qabtay dhalinyaro badan oo tababaro iyo dabrido ku sameeyay magaalada agagaarkeeda looguna talagalay inay fuliyaan falal qarankan kullid ah xalay oo bishu ahayd 6/9/2017 waxay ciidanka booliisku hawlgal ku soo qabteen wadaadka leeyahay Aadan Cabdi Warsame loo yaqaano Aadan Sunne isagoo ciidanka amniga kala yimid iska caabin xoogan kadib markii uu soo abaabulay kooxay isugu jira rag dumar iyo dhalinyarada kooxda loo yaqaan himilo kuwaasoo ciidanka kala yimid dagaal xoogan waxaa kale oo wadaadkani maalintii ciidda garoonka Hargeysa stadium dadweynaha kula hadlayay hadallo kicin dadweyne ah isagoo ka been sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee kooxdaas tabriidka sameysay lagu soo qabtay isagoo ku sheegay in la soo xiray oo isagu tabriidka sameeyay kuwaas oo isagu mas'uul ka yahay wuxuu ku andacoonayay waa la iska soo xiray waa beedambi isagoo maxaraaya ومحفوظة سكوا هي قدبيه Sheekh Aadan Cabdi Sunne oo sheekha ay soo xidhan ciidamada booliska Soomaaliland ayaa waxa uu maalintii ciidii khudbad ka jeediyay garoonka Hargeysa Stadium halkaas oo ay ku tukanayeen dadweyne aad u tiro badani waxaana uu sheekhu khudbadaasi uu halkaas ka jeediyay uu ku difaacayay dhalinyaro ay soo xidhan ciidamada booliska Soomaaliland kuwaas oo ku eedeysnaa dabrida ay ka sameeyeen deegaanka lagu magacaabo Ubaale oo ku yaala duleedka magaalada Hargeysa waxaana khudbadiisaas ay isugu jirtay hadal caadi ah iyo gabayo uu kaga hadlayo in dabka la qaato waxaana ereyadu Sheekh Aadan Sunne maalintaasi ciidii uu ka jeediyay Hargeysa Stadium kamid aha dawladdu waa taa maqlaysa Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne ay taqaaniin ana ka marxaatina bila dambi yihiin been ma sheegayaashiinu waxay doonaan baa keenan banaanka soo dhiga bal waxa dastuurka dawladani dhigatay dambi ku noqonaya dhalinyaro lagu diirsado lagiyo dooraba yimi marun baa darxumiye ka bixi dalaasigi eerta marun bay danabyadii ku darbaday duulan soo keen inta degi dunyana ilaga dhiciyo wixii dumaya yeelkiye dabka qaada dirin waxaan ahayn daawo lagu waaye madayaba dariiqi aliya ninkii diinta nabi raacay mata sooba daacada rabbiga waxa dib ugu aydaaye u darbada dagaal iyo jihaad intaan duliga tuurayno